sanad ayaa iminka laga joogaa geeridii duqii hore ee caasimada muqdisho ahaana gudoomiyihii hore gobolka banaadir marxuum cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriso waxaana marxuumka lagu xasuustaa kaalintii uu kasoo qaatay dib u soo kabashada Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa lagu qaban doonaa kulan ciyaareed lagu maamuusayo waxqabadkii iyo dadaalkii gudoomiyihii hore gobolka banaadir marxuum injineeriso waxaana ciyaar xiiso badan gegada injineeriso ee degmada Cabdilcasiis ku wada ciyaari doona kooxaha kale ah madbacadda qaranka oo hoos tagta wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya in adiga dowladda hoose ee xamar 17 July 2017 marxuum injineeriso ayaa qayb weyn ka qaatay dib u soo celinta nadiga madbacadda qaranka oo hoos tagta wasaaradda warfaafinta wuxuuna xilliga marxuum injineeriso ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya iyadoo bahda ciyaaraha ay kaga mahad celiyeen kaalinta uu ka geystay soo celinta nadiga madbacadda qaranka. nadiga waa naadi curduna oo bilow ah ma haystaan imkaaniyaadkii loo baahnaa in dhammaan cid alaale ciddii taageeri karta ay taageeraan habka ugu habboon lagu taageeri karno waxay tahay bahda saxaafadda oo doorkooda ka qaadata arrintaas iyada ah soo noolaynta maanta aan bilaawno daafurka inay noqoto mid laga dhabeeyo oo naadiga uu noqdo naadiga ugu qanisan naadiga maaragtay ugu horeeya taasna shakiga ma jiro inay imaanayso. mudane cabdiraxmaan cumar cismaan wuxuu siyaasadda Soomaaliya ku lug lahaa 15 sano ee u dambeysay wuxuuna bilaabay in arrimaha siyaasadda uu ka shaqeeyo xilligii uu ku noolaa magaalada London ee wadanka Britain. 24 November 2017 injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow wuxuu dib u soo celiyay naadiga dowladda hoose ee Muqdisho City Club waxaana kooxdan labadii sano la soo dhaafay kobac sare ee ka sameysay tartamada gudaha iyo dibadda. soo celinta kooxdaas waxaa ku faraxsanaa bishii November 2017 maamulka ciyaartooyda iyo taageerayaasha naadiga dowladda hoose iyagoo marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ku ammaanay dadaalka iyo kaalinta weyn uu ka qaatay inay ku ciyaaraan magaca caasimadda ee gobolka banaadir. waxaa fursad u yeelateen inaad matashaan caasimaddiinni waxaa fursad u yeelateen in magac weynaa nashiibkii iyo taariikhdii aad dib u soo nooleysaan dib u soo nooleyntaasi taariikhdaasna waa mid la rabo dhallinyarada hadda fursad uu siiyey gudoomiye abuukar in ay noqdaan kuwo ka faa'iidaysta isla markaana burhaantooda iyo xirfadooda ummadda u soo bandhiga iyo inay magaca iyo sharafka iyo karaamada caasimadda ay kor u qaadaan. magaca naadiga muqdisho waa magac weyn oo gobolka banaadir iyo caasimadda ah magacan hore oo maqli jiray muqdisho naadiga muqdisho hore oo maqli jiray marka alxamdulillah ku faraxsanahay maanta anoo wili waqtiga xilli ciyaareedka kubadda cagta ku jiro inaan ka mid noqdo naadiga muqdisho. 9 Agost 2019 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ugu magac daray garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee degmada Cabdilcasiis duqii hore caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow wuxuuna garoonkan ka mid yahay garoomada ugu waaweyn ee martigeliya ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya. maanta waxaan ugu magac darnay stadiumkan waxaan ugu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan Yariisow yaan ugu magac darnay sacrifice-ku soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa. bahda ciyaaraha Soomaaliya ayaa eebay ugu bariyay inuu jannadiisa firdawso siiyo injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow maadaama uu qayb ka ahaa laacibiintii hore naadiga howlaha guud iyo guryeynta ee LLB Genyo sidoo kalena kaalin wanaagsan ka soo qaatay dib u soo celinta kooxda madbacadda qaranka oo hoos tagta wasaaradda warfaafinta iyo naadiga dowladda hoose ee Muqdisho City Club.